qaadka ma lagu daaweyn karaa sokorta? dadka sokorta qabo xamar ku nool aad ay u badan yihiin. dadkeena waxay isticmaalaan ama cunaan qaadka maalin walbo ama usbuucii dhowr maalmood oo kamid ah ay isticmaalaan. waxaa jiro daatooyin badan oo la soo bandhigay laguna daabacay Think Global Health. waxay leedahay in Hargeysa iyo Muqdisho dadka ku nool 80% ilaa 90% in ay isticmaalaan qaadka. sidoo kale waxay leeyihiin dadkaas 80% kamida in ay yihiin dhalinyaro ka yar 35 oo rag ah, 5% kamidana waa dumar oo markaa isticmaala qaadka. waxay tilmaameen dhalinyaradaas oo 80% ka ah inta jaadka isticmaasho inay u badan yihiin dhalinyaro aan shaqo lahayn ama aan haysan wax shaqo ah. teena hadda u soo laabano marka qaadka ma lagu daaweyn karaa sokorta? sida aan aragnay cilmi baaris badan oo la sameeyay laguna daabacay National Institute of Health, sidoo kale Dove Health Press iyo Jaamacad Basiira waxay tilmaamayaan cagsiga oo ah in jaadka uu riski geliyo qofka cuno in uu qaado diabetic inay ku dhacdo ama sokorta inuu ku dhaco qofka isticmaala qaadka. waxayna daliishanayaan sababo badan oo keeni karo. waxa ugu horeeya sidoo kaleeta in ay isla xiriiriyeen dadka isticmaala qaadka weliba saa'idka uu isticmaalo inay 3 jeer halis ay ugu jiraan 3 laab in markaas ay develop gareeyaan ama uu ku dhaco cudurkan macaanka ama sokorta weliba nooca labaad ama type 2 diabetic inay ku dhacdo. waxaa jira marka maaddo la dhaho cathinone oo ku jirta qaadka. maadadaas marka waxay sababtaa hyper activity of sympathetic nerve, waxayna keeni kartaa jirka sokorta ku jirto dhan la soo daayo oo dhiigga lagu soo daayo. sidoo kale waxay sababi kartaa in stress hormonka loo yaqaano cortisolka aad uu jirka ugu bato. qof walbeeto jaad isticmaalan lagu yaqaanaa inay isticmaalaan sokor aad u fara badan. sokortaas ay badanaa ku darsadaan ama cabitaanada ama sidoo kale ay ku darsadaan shaaha. taasna waxay keeni kartaa in jirkii oo awal ku jira xaalad sokorta jirka ku jirta ay badan tahay ama sokorta u keedsaneed ee banaanka loo soo saaray sokor kaloo caadiya lagu sii daray. taasna waxay sababay mar walbeeta in xubnihii jirka si fiican ay u shaqeyn waayaan. waxaana ugu daran xubnaha saameysay kelyaha. waxaa la sheegaa dhibaatada kelyaha soo gaartay in ay tahay in borotiin badan uu dhumiyo oo kaadidana ku dhuminayo qofka jaadka isticmaalo. borotiiniska muhiimka ah oo markaas qofka ka dhuma waxaa kamid ah albuminka. waxaa cilmi baaris badan ay sheegeen in qofka qaadka isticmaalo albumin badan ama borotiin badan kilidiisa markaas ay ku dhunto, sidaasna kilidiisa ay markaas shaqo badan ay ku weyso ama aad ay u liidanayso ilaa marka dambe kiliya ay qofka fariistaan. waxaa jiro myth ee Soomaalida aaminsan yihiin oo ahaa in marka uu qaraar yahay jaadka maadaama qaraar uu yahayna sidaas daraadeed sokortana ay macaan tahay inuu dhimaayo sokorta. laakiin taas meesha way ka baxsan tahay. wuxuu dhibi doonaa kelyahaaga, sidoo kale wuxuu dhibi doonaa beerkaaga, wuxuuna ka shaqayn doonaa in daawooyinka aa u isticmaali lahayd sokorta sida la rabay ayna u shaqayn. waxaa jira marka haddii qofkan qaadka cuno marka koowaadba intuu caafimaadka qabo hadduu sokor qabin riski wuxuu ugu jiraa ka badan 3 jeer qofka sokorta qabo inuu maaragtay sokor ay ku dhacdo wuxuu uga badan yahay qofka aan sokorta qabin. sidoo kale waxaa jiro qofkan sokorta qabo ee jaadka haddana sii isticmaalayo laftirkiisa in dhibaatooyinka sokorta ay leedahay oo dhan ama complicationadeeda ay kasoo muuqanayaan marka loo fiiriyo qofkaana jaadka cuno. sidaas daraadeed waa been in uu qofka iska dhaadhiciyo jaadka in uu markaa sokorta yareeyo, sidoo kaleeto in uu u fiican yahay dadka sokorta qaba inay isticmaalaan jaadka. waxaa ku talinaynaa in uu qof walbeeto uu iska joojiyo isticmaalka qaadka sababtoo ah wuxuu xawaarihiisa sii badinayaa in uu dhibaato badan kelyahaaga uu u geysto. sokortiina meelo badan ay kaa dhibaatayso sida indhaha, neerfaha iyo xubno kaloo badan. waa mahadsantihiin. waa Dr. Axmed Yuusuf Maxamed ku takhasusay cudurrada guud iyo neef mareenka. kusoo dhawaad Horyaal Hospital.